taakuleynta ay kaga qayb qaadanayaan dhismaha wadada Ceeri Gaabo Burco lacagta ajaareedu noo soo gudbisay oo uga wakiil ahaa Ustaad Abubakar Maxamed Cali waanu ka gudoonay qadarkeeduna waa $8,600 si fiican bay uga qayb qaadanaysaa hawsha balaaran ee la wado waxaanay muujinaysaa iskaashi iyo niyad wanaag iyo jaaliyada sida dadkooda iyo dalkooda uga warhayaan taariikh dheer bay leedahay jaaliyada reer Jiddo waa la ogyahay ilaa iyo xilligii halgankii iyo dhismaha dalka intaan Yurub iyo dunida la baran dhulkii dalka laga dhisay weeyaan dhulkii halganka laga taageerayay weeye marka aad iyo aad bay uga mahadsan yihiin imkana qaybta ay ka soo qaateen iyo kuwii hore ee maaray u sheegay iyagana waxaan ugu bushaareynayaa iyo ummadda kale reer Soomaaliland in wadadii jidkii dheeraa ee 300 kilomitir ah ee Ceeri Gaabo Burco oo maanta 300 bay isku xidhmeen halkan waxaa fadhiya maareeyihii wakaaladda horumarinta wadooyinka dhinaca waxaa fadhiya maareeye ku-xigeenkii isla markaana ah project inta leeg project managerkii Maxamuud Daahir halkan waxaa fadhiya injineerkii guud Cabdullaahi Cabdisalaam Sheekh Cali Jawhar ninka bidaarta leh halka fadhiya weeyo ninka mashruuca inta leeg injineerkiisi hadda Ceeri Gaabo ka yimaadeen waxay wateen baabuurta yaryar ee kuwan berbere iyo marka lagu socdo iyo booramiye la kaxaysto ayay wateen ay ku yimaadeen Hargeysa maasha Allah marka safarkuna waa safar kooban oo dhowr saacadood waxay shaqeynayeen iyadoo waliba xaaladdu adag tahay oo abaar jirto dhibaato jirto iyaga iyo shaqaalahooda aad u ballaaran ee joogaba iyagana aad iyo aad baynu ugu mahad celinaynaa shaqada culus ee qaranka u hayaan dhammaantiin waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.